soomaalida meel kasta ay joogto waan salaamayaa waxaan maanta halkan uga dirayaa fariin horta waxaan ku taanidin ninka la yiraahdo farmaajo waxaan ku taanidinayaa kaadi badana waa loo gol badiyay inuu nimankii san maartay dani iyo maartay ninka la yiraahdo madoobe labadaas inuu 100 tanaasul u sameeyay oo ugu dambaysay tii aniguba aan diidanaa ee ahayd inuuna tagin xalane oo magaca dawladnimada ku baabay hadduu xalane tago oo nimanka gaalada ah hoostooda tago haddana maca dalka uu tanaasulay oo waa maanta iyo shalayba fadhiyay maartaanay meesha la yiraahdo afasyoone xalane waa ka fadhiya tanaasulkii haddana odayadii gaagabnaay indhaha maartay indhaha yaryaraay midna ahaa Kenyaanka mid jimcada gormaga dhaasa u joogay Mareykanka ahaa midna uu yahay kii maartay safiirka u ahaa iyo mooto la yiraahdo labadiiba rag ay ka keeneen Kismaayo iyo Garowe inay keeni kari waayeen tandadii ugu tala galeen ayuu goosha dhigeen way keeni kari waayeen markaas haddana maanta waxay ku leeyihiin shirka laga dhigo horta toddobaadka hore qof iyo isbarasho iyo maartay xaarisho iyo waxbay ku maaweelinayaan waa nimankan Kenya iyo Imaaraad baa ka dhaxadlaya mucaaradkan maartay iyaga laftooda lacagtii Kenya iyo baashi lacagtii ma haystaay Kenya iyo Imaaraadka ayaa ka dhaxadlaya waxa weeyeen jabhad baba hadda la sameystay la yiraahdo jabhadii dumisay Maxamed Siyaad Barre oo niga la yiraahdo Cabdi Xaashina uu yahay SNMta uu masalayo waba la yaab SNMta uu masalayo oo shan jabhadood iyo afar waxay tahay mooyaane la sameeyay oo Axmed Madoobi iyo Danay iyo qoladii mucaaradka oo iyaduna ku USD malaha ah iyo Cabdi Xaasho masalaya maartaanay SNM hadda ay yiraahdeen guddiga maartay badbaadada ummad maartay waa guddi burburinta oo waxa weey dawladani waa dawladii labaad ee hana qaada Maxamed Siyaad Barre dabadeed marka tiina afartii jabhadood dumiyay ee xamar ku baabiyay ee ina cartana uu yiri maartaanay ciidamada la isku dhiibay ciidamadii oo dhan uu yiri la isku dhiibay jabhada tiyo kale ayay doonayaan marka waxa weey maanta waxa la oranay haddana maanta isku dhiibay jabhada badbaado ciidamada isku dhiibay la oran doona mal joog waxa weey taas waxa weeyaan nimanka gaalada ah ee afasyoone iyo xalna la sheegay fadhiya iyo kuwa madmadow ee maartaanay gaar ka haya waxaan leenahay haddaad keeni kari weydeen labadii nineed xalna ku hayseen haddaad teendadii shirka keeni kari weydeen waddankayga faraha nooga qaada farmaajana waxaan leeyahay mar dambe iyo maalin dambe tanaasulka iska ilaaliyo iska dah waayo waxa weeyaan mar hadday gaadhay adi inaad tiri waa maartay gooshi laba cisho aad fadhiday aw dhusamarna maalintii berigii wuxuu fadhiyay 5 cisho iyo 7 waxayd mooyaane iyo fadhiyo waa ku iman waayay hadda mar walba ma 7 iyo iyadoo madaxweynihii waddanka uu yahay ninkaasi ayuu haddana iyaga dartooda kolba meel u fadhiya 7 waxaas wax la aqbali karaa maaha taasi waxaan leeyahay qolada beesha caalamku way fashilantay oo yadna way kari weydeen nimanka inay maartaan wax ka qabato Soomaaliha iskaga tagto markaa iska faraha ka qaado sidii la isku raacay sidii la isku aqbalay jirtaan ta kale waxaan leeyahay qolada baarlamaanka la yiraahdo xamar fadhida maartaan filaha la yiraahdo Hargeysa la yiraahdo fadhida waxaan leeyahay ummad baad u shaqaysaan oo masashaan dad baarlamaan tihiin ummad baad u shaqaysaan oo masashaan waxaad ku masashaan waxa weeye ilaalinta dawladda iyo qawaaniinta iyo maartaanay amniga iyo waddanka wax dhamaantiiba idinka mas'uulka oo ummaddu idin dooratay idinka odayaal idinkaan keensan meesha haddana ummad baa magaceeda la isku keenay waxaan leeyahay baarlamaanka waxa weeyaan ummadan beeruma qodaan oo midho ma soo saartaan baduga ma soo kalluumaysaan waxa weeye inaad ilaalisaan dawladnimada iyo xukuumadda iyo maartaanay shuruucda aad ilaalisaan weeyaan waxa la idinka doonayaa hadda heerka ay gaadhay mid baarlamaan meel u fadhii karo ma aha waa inaad qaraar qaadataan waa inaad maartay idinka laftiina goysaan waqtiga maartaanay doorashooyinka la galayo aad goysaan ba idinku waa inaad idinku maartaanay soo saartaan waqtiyada ay suuragal tahay in doorashada lagu qabto midda kale madaxweynaha leeyahay waqtigiisa dhamaaday idinka u dhamaaday soo saara qaraarada oranaya ilaa maartay dawladii bedelaysa la helo oo baarlamaankii bedelay la helo oo madaxweynaha bedelay la helo waa iyaga joogaya meesha iyadoo qoran inaad soo saartaan haddii madaxweynaha loo kordhinayo waqtina
inaad idinku soo saartaan oo aad maarataanay yana waqti siisaan maarata waddanka haddii qof iyo cod la gaadhsiinayo iyo haddii tan hadda la wadayaba waa inaad idinku saa maarata dhammaysaan marka baarlamaanka waa inuu ogaadaa mas-uuliyaddiisii inuu ka khuurinayo iminka oo ka hurdo oo ayaa meesha maarata inuu ka khuurinayo ha la ogaado intaasaan iyagana ugu daraya soomaalida meel kastoo joogto waan salaamayaa waxaanan maanta halkan uga dirayaa fariin horta waxaan ku taanidin ninka la idhaahdo farmaajo waxaan ku taanidinayaa kaadi badane waa loo gogol badiyaaye inuu nimankii maaratay dani iyo maaratay ninka la idhaahdo madoobe labadaas inuu 100 tanaasul u sameeyey oo ugu dambaysay tii aniguba aan diidanaa ee ahayd inuuna tegin xalane oo magaca dowladnimada ku baaba'ay hadduu xalane tago oo nimanka gaalada ah hoostooda tago haddana maca daalika uu tanaasulay oo waa maanta iyo shalayba fadhiyey maarataanay meesha la idhaahdo afasyoone xalane waa ka fadhiyaa tanaasulkii haddana odayadii gaagaabnaaya indhaha yaryaraaye midna ahaa kenyaanka jimciyadda gormaka u joogay maraykanka ahaa midna uu yahay kii maaratay safiirka u ahaya iyo mooto la idhaahdo labadiiba raggii ay ka keeneen kismaayo iyo garowe inay keeni kari waayeen teendhadii ay ugu talagaleen iyago goosha dhigeen way keeni kari waayeen markaas haddana maanta waxay ku leeyihiin shirka ha laga dhigo horta toddobaadka hore qof iyo isbarasho iyo maaratay isxaarisho iyo waxbay ku maaweelinayaan waa nimankan kenya iyo imaaraad baa ka dhex hadlaya mucaaradkan maarata iyaga laftooda lacagtii kenya iyo baashi lacagtii ma haystaay kenya iyo imaaraadka ayaa ka dhex hadlaya waxa weeye jabhad baaba hadda la samaystay la idhaahdo jabhaddii dumisay maxamed siyaad barre oo ninka la idhaahdo cabdi xaashina uu yahay snamta uu masalayo waaba la yaab snamta uu masalayo oo 5 jabhadood iyo 4 waxay tahay mooyaane la sameeyey oo axmed madoobe iyo danay iyo qoladii mucaaradka oo iyaduna USCD malaha ah iyo cabdi xaasho masalaya maarataanay snam hadda ay yidhahdeen guddiga maarata badbaadada ummad maarata waa guddi burburinta oo waxa weeye dowladdani waa dowladdii labaad ee hana qaada maxamed siyaad barre dabadeed markaa tiina 4 jabhadood dumiyey ee xamar ku baabiiyey ee ina cartana uu yidhi maarataanay ciidamada la isku dhiibo ciidamadii oo dhan uu yidhi la isku dhiibo jabhadaha tii oo kale ayay doonayaan marka waxa weeye maantana waxa la odhanay haddana maanta isku dhiibo jabhadda badbaado ciidamo isku dhiiba la odhan doonaa maljoog waxa weeye taas waxa weeyaan nimanka gaalada ah ee afasyoone iyo xalnaa la sheegay fadhiya iyo kuwa madmadow ee maarataanay gaarka ka haya waxaan leenahay haddaad keeni kari weydeen labadii nineed xalna ku hayseen haddaad teendhadii shirka keeni kari weydeen waddanka iyaga faraha nooga qaada farmaajona waxaan leeyahay mar dambe iyo maalin dambe tanaasulka iska ilaaliyo iska dah waayo waxa weeyaan mar hadday gaadhay inaad tiri waa maaratay gooshii 2 cisho aad fadhiday dhusamarina maalintii berigii wuxuu fadhiyey 5 cisho iyo 7 waxayd mooyaane iyuu fadhiy waa ku iman waayey haddaba mar walba ma 7 iyadoo madaxweynihii waddanka uu yahay ninkaasi ayuu haddana iyaga dartooda kolba meel u fadhiya 7 waxaas wax la aqbali karaa maaha taasi waxaan leeyahay qolada beesha caalamku way fashilantay oo yadna way kari weydeen nimanka inay maaratan wax ka qabato Soomaaliha iskaga tagto markaa faraha ka qaado sidii la isku raacay ee sidii la isku aqbalay iyada jirtaan ta kale waxaan leeyahay qolada baarlamaanka la yiraahdo xamar fadhida maaratan filaha la yiraahdo hargeysa la yiraahdo fadhida waxaan leeyahay ummad baad u shaqaysaan oo masashaan dad baarlamaan tihiin ummad baad u shaqaysaan oo masashaan waxaad ku masashaana waxa weeye ilaalinta dawladda iyo qawaaniinta iyo maarataanay amniga iyo waddanka wax dhammaantiiba idinka mas'uulka oo ummaddu idin dooratay idinka odayaal idinkaan keensan meesha haddana ummad baa magaceeda la idinku keenay waxaan leeyahay baarlamaanka waxa weeyaan ummaddan beer uma qodaan oo midho uma soo saartaan baduga ma soo kalluumaysaan waxa weeye inaad ilaalisaan dowladnimada iyo xukuumadda iyo maarataanay shuruucda aad ilaalisaan weeyaan waxaa laydinka doonayaa hadda heerka ay gaadhay mid baarlamaan meel u fadhii karo ma aha waa inaad qaraaro qaadataan waa inaad maarata idinka laftiinu goysaan waktiga maarataanay doorashooyinka la galayo aad goysaanba idinku waa inaad idinku maarataanay soo saartaan waktiyada ay suuragal tahay
in doorashada lagu qabto midda kale madaxweynaha leeyahay waqtigiisiba dhammaaday deedikaba u dhammaadee soo saara qaraarada odhanaya ilaa maaragtay dowladdii bedelaysa la helo oo baarlamaankii bedelay la helo oo madaxweynahan madaxweyne bedelay la helo waa iyagaa joogaya meesha iyadoo qoran inaad soo saartaan haddii madaxweynaha loo kordhinaya waqtina inaad idinku soo saartaan oo aad maaragtaan yana waqti siisaan maaragtay waddanka haddii qof iyo cod la gaadhsiinayo iyo haddii tan hadda la wadayaba waa inaad idinku saa maaragtay dhammaysaan marka baarlamaanka waa inuu ogaadaa mas-uuliyaddiisii inuu ka khuurinayo iminka oo ka hurdo oo ayaa meesha maaragtay inuu ka khuurinayo ha la ogaado intaasaan iyagana ugu daraya